ميوكو وحمينيا ترسكيو واسعبتيو ميو إهلك كاتشري waxa aan la leeyahay waa urugadiisa cadna urugu talada mala umaal wareerta suugaantu waayadii hore waxay ahaan jirtay mid door muuqda kaga jirta bulshada haddii ay ahaan lahayd dhaqanka siyaasadda ama waxyaabaha kale ee nolosha ijtimaaciga ah ama nolosha bulshada ee ku xidhan dhaqan-dhaqaalihii Soomaalida waxa ay ahayd mid door lixaad ka qaadata haatanse waxaad moodaa in hoos u dhac ku yimid oo ay dib u socod ay ka muuqato suugaanta haddii ay noqon lahayd dhinaca kobcinta afka oo moodo inuu afka sii lumayo ama wacyigelinta haddii ay ahaan lahayd Cabdilaahi door intee leeg ayaad leedahay suugaantu waa ay ku leedahay bulshada waqti xaadirkan aynu joogno warta maxay suugaantu way isbedeshay hoos bayna u dhacday way jirtaa sababo waaweyn oo macquul ah oo laga garaabi karo ayaana keenay hoos u dhacaas waayo marka xilliga la nool yahayba waayo cusub baa soo baxa wax cusub ay yimaada noloshu way isbedeshaa xadaaradii iyo wixii la yaqaanay oo dabcan suugaantuna kamid tahayna way isla bedelaan marka warunta doorkii suugaantu ay Soomaalida dhexdeeda ku lahayd ama nolosha Soomaalida ku lahayd hoos bay u dhaceen ama u dhacday waxaana keenaysay haddaynu rabno inaynu fahanno maxay suugaantu hoos ugu dhacday waxa fiican inaynu fahanno suugaanay maxaa tahay iyo doorkay lahayn jirtay muxuu ahaa suugaantu horta waa qayb hadalka ka mid ah waana in hadalka intiisa ugu wanaagsan ee ugu xikmadda badan la weeyaa waana weel ay Soomaalidu ku guran jirtay ee aqoontooda xadaaradooda kaftankooda dhaqankooda iyo wax kasta oo ay leeyihiin madadaaladooda ay ku guran jirtay oo amaba ay ku kaydin jirtay amaba ay ku maxay safrin jirto qof tuulo kala jooga lagu gaarsiin jiray fariinta gabay amaba ka soo dhalan doona 100 sano ka bacdi mahmaahadii la yiri cilmi iyo aqoonta lagu guro oo hadhow mahmaahada kala soo dhaabixi jiray tusaale ahaan muxuu hayay marka maamaha Soomaaliyeed tiraahda dhool bari ka hora daan loo nageeya maamaha macnaheedu waxa weeyaan hadii iyadoo la haraadan yahay oo dhaankii la raray oo biyo la doonayo hadii la arko inuu cirku bari ka soo cuftay waa la joojin jiray waayo waxa la garan jiray inuu cirka bari ama daruurta bari xigta ay isla ilbiriqsigiiba ay imanayso oo ay daayso wax la iska bartay ma ahayn wax buu laga akhriistay ma ahayn wax laga yaabo wax qarniyaal badan la arkayo la ururiyay oo inuu oday 70 sano uu cirka u fiirsanay uu arkay daruur ka soo bari ka timaaday inay markii ay imanaysay daruur kasto galbeed ka xigtaanay inay imanaynay ay tagaysay markaasuu si uu inankiisa ayna ugu qaadan 70 kale inuu isna baaro ayuu mahmaahda yar gaaban ugu ururiyay markaasuu dhool bari ka hora dhan loo nageeyaa inaad hees ku maqashana u dhici kartaa laakiin waa mahmaah marka wax cilmigaas ay xambaartaa oo la isku gaarsiiyaa marka Soomaalidu mar bayna waxba qori jirin oo waxa kaliya wax ku urursataa ahayd suugaanta mar baanu record jirin oo TV jirin oo idaacad jirin oo waxa kaliya shaqada qabta ahayd suugaanta mar baan madadaalo kale jirin internet jirin aqoon kale jirin wax kale jirin oo waxa kaliya wax lagu qabta ahayd suugaanta maanta waxaas oo shaqo oo soo baxay waxaas oo maxay qalab oo soo baxay shaqadii suugaantu ay Soomaalidu u qaban jirteen bay qabanayaan marka dabcan suugaantu yeelan mayso muxuu hayay doorkii ay lahayd laakiin still ama wali waxa weeyaan waa wax weyn oo Soomaalidu jeceshahay waana hal abuurka kaliya Soomaalidu soo saartay qoraal iyo wanaagsan oo aad u fiican oo dunida la tartamo ma lihin dhismayaal ama hal abuur kale oo wax soo saaray ma lihin hal abuurka kaliya maanta Soomaalidu dunida kula tartami karta ama wax heer ka gaarsiinaysa wali waa suugaanta oo wali qiimo weyn way ku leedahay laakiin 100 sano ama 100 sano ka hor doorkii qaban jirtay ma qabato noloshii way isla bedeshay sidoo yadoonsaday miyuku waxminaya tariskiyo wasabtiyo miyu ehelka ka jiray waxa aan la leeyahay waa urugadiisa cadna urugu talada mala umaal wareerta